السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله شرفت بدن ملك استأجرت سود هذا ولكن محمد مارة هل قاعد يقدر ونسأنا فيسبوك بيج كيجا مارة ما تحرر مقال كان كوبان إن كوسو كوبو سيدي كوهان كرتا أما كوهانتي كرتا أما كو كسبان كرتا قلبي قفك أتشعش هاي مقال كان كوسو قد بندونا استعمى يرير أو كوسه ليا إن أتصفدت وجوهانتيدو أما أوهشوا أما أو كسبتو قلبي قفك أتشعشهاي أما أدنولش لو ذاك يسيد أما حريرك يدين كده حيو هاساوه مركا إنه حريرة ودنا مركا قار خلادات بين كده عاد هاسو سبب كرتين حريرة دينا أما جوركين أما نولشين أي بربران من مركا قارنا وناق بينو سمينا تاسو كيني كرتا وح بربور لها أما دومي لها أما دمان لها إني إنوبت بعديان وحرير كينا أما هاساوها إنه لنا هاي قفكا إنه تشعلنا هاي مقالكن sidaan hore u sheegay waxaan ku soo koobi doonaa astaamo dhowr ah oo ku sahlaya ama ku fududeynaya inaad kasbato qalbiga qofka aad jeceshahay intaan muuqaalka u gudbin waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saarto lana wadaagto saaxiibadaada kale qaybta commentigana aad fikirkaaga noogu soo gudbiso qodobka koowaad oo aad ku kasban karto qofka aad jeceshahay waxa weeyaan in aad isku daydo inaad farxad siiso inta aad qofka wada joogtaan ama wada hadlaysaan ama uu agtaada joogo inaad isku daydo inaad samayso waxyaabo badan oo isaga farxad gelinaya inaad isku daydo inaad ku tiraahdo hadallo degan qabow naxariis leh deganaan leh oo qofka qalbigiisa ku soo jeedinaya ama dhankaaga u soo weecinaya inaad isku daydo inaad samayso afcaal ama ficilo qofkaas farxad gelin kara inta uu kula joogo ama uu kula hadlayo sida inaad la kaftanto sida inaad yani hadallo wanaagsan oo naxariis leh oo deganaan leh aad ku tiraahdo sida inaad marmarka qaar u samayso kadisyo ama sabraysyo aad kaga farxinaysid isaga waxyaabaha uu jecel yahay aad u keenaysid qodobka labaad in aad garab istaagto oo aad garabkiisa ahaato marka uu qofkaas murugaysan yahay ama uu culays dareemayo inta badan marka aynu murugaysanahay ama aanu ina haystaan culaysyo nololeed ama culaysyo shakhsiyadeed dadka garbaheena soo istaaga ama inoo muujiya inayna garab taagan yihiin markasta way inooga duwan yihiin dadka kale sababtoo ah qofkaas waxaad ka heshay wehel aad u baahnayd waqti ay kugu adkeyd inaad keligaa fikirto waqti ay kugu adkeyd inaad keligaa ahaato sidaa daraaddeed garab istaag oo u muuji inaad dhinaciisa tahay waqtiga uu qofkaasi murugaysan yahay ama uu dareemayo culays dhinacuu doono ha ahaado qodobka saddexaad in wanaag kasta oo qofka aad u sameynayso iyo wax kasta oo naxariis badan oo qofka u sameynayso aadan ku xidhin wax shardi ah oo tusaale ahaan inuu ku wanaajiyo tusaale ahaan inuu waxaad jeceshahay kugu bedelo iyo waxyaabo la mid ah kaliya marka aad wanaag sameynayso aad ka soo qaado qof aad ku qanacsan tahay oo aad rabtid inuu noloshaada ku soo biiro ama uu noloshaada ku sii jiro oo aad wanaag u sameynaysid qodobkan waxaan kugu soo qaatay wuxuu yahay dadku inta badan marka ay ficil sameynayaan oo ficilka ay sameynayaan ay maskaxda ama maanka ku hayaan in ay ku helaan waxa ka wanaagsan ama bedel kaas la mid ah oo qofkii ay ka heli waayaan sidii ay rabeen inta badan waxa timaada in qofkaas uu ka caajiso in uu wanaag u sameeyo qofka kale inaad ka caajistid inaad yani aad wanaajisid qofkii oo noloshiisii iyo farxadiisii aad ka talisid saa daraaddeed si aadan uga caajisin qofka aad jeceshahay ama aad rabtid inuu noloshaada kusii jiro ama kusoo biiro wanaagga aad samaynayso ha ku xidhin wax shuruud ah ee u sameey keliya in aad qofka ka farxisid maadaama wanaaggu uu ka mid yahay waxyaabaha qalbiga qofka bini'aadamka ah soo jiita oo kuu soo dhoweeya adiga saddexdaas qodob ayaan kusoo koobi doonaa muuqaalkayga ومahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته